abiis wuxuu ku yiri gabadha aad rabtid oo jeceshahay ma guursanaysid gabadha adeerkaa dhalay adeerkaan ka ballan qaaday inaan gabadhiis ka doonano aanan kugu daro wiilkan wuxuu yiri aabo qasab meesha ma yaalo aniga gabadhaan rabin hay ugu darin gabadha aniga jeclay aan guursanayaa abiis wuxuu yiri haddaa gabadhaas guursatid gadaashay uu yiri albaabkaad iga bixaysaa kumana aqaan imana taqaan waana iga dhimatay الأولتما وقدم بنتي وحقوقان لو جاري إن قبدي لا قدروا لكن هبينكي وقولي أروس كوز هاي يا ما حد عاي بل أمد لي سنة قصدان نبحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصدان ما أنتو حتى هاي قصفقة ضدك أنسربن لسوق دراي إيه والدين تا اسكو قصباي labada qofood inaan isku qasbinaaro in ay isfahmaan ay in isdoortaan ay in isku guursadaan xun isoo wixii ka soo dhaxmaro ayaga u taala insaas la ku fiicanta waalidka ra'ayina ku darsado qofkan anaga fiicnaan uma arkin xogaa inaan kale xataa ku fiicnaan haduu qofkii ogolaado kaas duu yiraahdaan aniga kale wala fiicantahay indab haydii la miiraha hore u soco labada qofood oo maanta isdoortayna waalidka inay ku ixtiraamaan ku fiicantahay xogaa guurkaas najax ma noqdo xogaa xataa ma sii soconaay labada qof ma israbta qasabsan ka biska gadiimo dibkeeda leeda waana arkay wallahi alcadiim facebook gabar oo habeenkeeda koowaad sun cabtay subhanallah gabadha marka qasada inuu wado bartu gabadhaas oo kale waa ii sun ma cabin laakiin ninkan aan rabin ayaa sun si gabadhan daacad waa iska rabtaahay adeerkada aba raali kaga ahay aabeen in raali kaga naqad laakiin wiilkan guurkan raali ma ka ahayn guurkan wax raali dhahay maba ka ahaynba boqol goor u sheegay wuxuu yiri aniga gabadhaan rabaa oo jaamacada sardigana ayaday anfacday aabo gabadhaan guursana abiis wuxuu ku jawaabay ma dhici karto gabadha adeerka guursanay adeerka ka balaqaad inaan gabadhiis ka soo dooneen gabadhiisa noo doonan gabadhaasaan lagu daraa hadaa diidin albaabka iga bixi hay sheegan ku sheeganay fardu farhawar labada mid qaad amal waxay jira abaha reerkiin ta ku bixileed waxay hadii kale tooyir mid samee abiis hee xataa ka dhigo yiri mid labaad ka dhigo mid saddexaad aday ku taala laakiin ko first lady gabadha walaalkay aan qanays wiilkii gabadhii loo qatoobay gabadhii la hadlay wuxuu yiri walaalay aniga kuma rabo kuma jecli aniga gabaraan jeclahay aniga gabaraan guursanaya aan rabaa qalbigii ku jirta adiga hadan ku guursada xataa waxba iimatiris waxna kuma taray sababtoo ah kuma rabo ninsaas ku yiri isku dhijilay ana xaniida mirabta ana marabo asmaro dhinacsad ana marabo dhinacsad tagnaalay ma sameeyeen gabadhii wixii jiray aabaha iyo aabahay wixii ogolaadeen ana waa ogol hada adir xataa ana ku ogol ya markaas wuxuu yiri way hada adigu kale diido yiri inaan diidide sida anigoo kaleete kale biriha shalayno nolol xumo leh ku dambeysay soo ku galay aragama bas seekasa soo ahay waa laga faa'iideystay marka ninkan waa laga faa'iideystay nimanka ka faa'iideystay ninka wuxuu yiri kaalana ku sheega naagta manacdi ha inay gaarto gabadhan adeerka dhalay madiida in lagu daro diyaar u tahay hal mid samee hay ana ku geena sabax meeshaan hadda waxa soo imin nin oo wadaad sixroola ah wax walba samee asan ku geena nabi wadaadka sixroola loo tagay waxa laga soo qaatay wixii soo siiyay bahal dhalinyar ku jirto oo daawo soo siiyay dhaladaas cabitaanka masacaana wax ugu dar habeenka arooskaaga si hakala reebin kabacdin ayada ku nacas marabiyoy ay ku leedahay hayo yir waa soo qaadiyay balaaya ku shaqaysan sheedaana wada ninkaan arooska hayo yiri habeenka arooska loo sameeyay arooska qabanqaabadiya la galay waali aroosii gabadhii habeenka guri markii la geeyay cabitaanka ugu dar horta aan cashayno yir gabadhan waa iska daacaday meesha hor fadhiisatay cabitaankeedii cuntada dhiguskusis markay cabitaankeeda daldash ilaa ugu buuxinta musqusha jirtay ugu buuxiyo dhaqaba isku qofkaana ku dilaa mas'uul saamay gabadhii barq aba socday waa gadgadi gabadhii ma hadlays si walba oo yar waa hadlays gabadhii oo la orday ambalaas oo la orday dhakhtarku geey dhakhtarka markii la dhigay oo saas loo geeyay gabadhii ee la baaray dhakhtarku wuxuu sheegay gabadhan inay sumeysan tahay naftana ka baxday ya
gabadhan waa la sameeyey naftaana ka baxda adeerkeed iyo aabaheed iyo isku yimid asaga aabihiis iyo iyada aabaheed ayada aabaheed gabadha waxay tiri oo yiri gabadheeda saa u disho inaan ku dilo balan oo yiri sababta u disho inaan ku dilo balan oo yiri adna ku dhaafay aabahan ma dhaafay la gabadheeda dishin maashi buuq iyo qayla ka dhash waxa reeyay ninkan waa la waday ee xirada booliiska la geeyay waxa la hayay hadal niyo gabadha maxaa u sameys wuxuu yiri aniga sun inaan sii uma maleynaa aniga wuxuu yiri waxaan ugu tanahay maahay inay idiido ayaan sheeqa sixroolaha wadaadka sixroolada ee jooga xaafada ayaan u tagay ninaan iigay dhaloon isu sii dhaladaas yar wuxuu yiri cabitaanka ugu dadar nin sunta ma maleynin hadii sunta inay tahay umaleynaa ma fasiilahay intuu degaya meelay wada degaya meeshii laga soo raadiyay guriga markii la soo jukay imaarada albaabka gogo la soo siiyay ee la furay albaabka ma la fur lahayn xagoo degaya ninka uu geeyay iyo meeshii uu tilmaamay ninkii yaa raadiyay ninka dil soo qabtay xiriirkaale Caatif aa u dhahaa adiga Caatif xaraga raba ninka ala shaqeys oo shaqsi xoroolaha keen muxuu sameeyay adiga keen gacanta laga qabtay guriga la wadatay gurigan waa wada guri markii la jukay albaabka yaa furay ma taqaaneen naag duqa furtay naag duqa afartay ninka meesha laga sugay markaas ay xiriir haye xaja adna maxaa inta ka sameeyay meeshan wadaad sixroolaha lagu sheegay adiga maxaa meesha ka sameeyay markaas waxay tiri wadaadka sixroolaha aaraadinaysiinay tiri aniga guriga anaa ka kareestay aniga waxay tiri intuu karada ku jirana markuu ka baxan guriga inuu soo noqdo oo nadiifsado aanu imid way ka kareestay waana baxay meel ka baxayna ma qaan markuu hadlayso hadalkeeda way ka leexleexanay wixii diidaysa ninkan wadaadka sixroolaha u shaqeey jiray inuu codkeeda fahmo warkiis fiican dhageysta markaas wuxuu leeyahay ninkii wuxuu leeyahay codkan codaan aqaan oo iga ninka booliiska wuxuu codka taqaan maxaa waay qofkan la sii wareystay markay ay hadashay yiri ani ma aqaan iga bax guriga iga bax markaas soo bood Caatifkii wuxuu dhahay wuxuu yiri Sheekh Saalax waa kana wadaad sixroole waa kana sheeku keentay wuxuu yiri wajigiis lama arki jirin wajigiisa lama arki jirin imaamada ku duuban jiray ko tan labaadna wuxuu yiri madaxane wuxuu ku duubanay imaamad halkaan imaamada ku xiranay waxa ku suurto khamiis noot sababta qof wajigiis arki jirto malaha askariga shakiya kale naagtu ku dhigay duqdi waayirkeed oo dhab jirna bixiyo waa soo wadi waxa la keenay booliiska meesha markay xirada la keenay xalidi miskita loo garaacay duqay warqaday markaas ay tiri alf maniga soo bilaabay maniga iga dhageystay tiri hay waxay dhahday waxa dhacday tiri maalmaha ka mid ah aniga waxay tiri adduunka waxaan ka qabay tiri hal gabar aniga ninkeyga iyo gabadhayda hay waxay tiri gabadhayday tiri adooga u shaqeyn jiray dhahday gurigaas wuxuu ka ahay babal xaaris yani albaabku waardiina waa reer taajir hay waa reerkan gabadhooda dhimatay aabahay waa duqaasan u shaqeynayna odayahay haduu ku yahay waxay tiri anigana guriyahan soo nadiifinay waa ka soo tagi jiray adoogana waardiyo ahaa albaabku u joogi jiray maalmaha ka mid ah tiri gabadheedii oo adooga albaabka ka maqan ayay tagtay aabaheeda wuxuu u diraashin cuno asaga joogay xaji yaxya wuxuu yiri soo gal gabadheedii waxay ahayd 14 jir gudihii u gashay markay gudaha u gashay waxa waay uu yiri aabaha kaal intuu fadhiyo soo gal markay gudaha sii gasheen albaabku intuu ku xirtay oo kufsi u geystay gabadheedii kufsigaas ayay ku dhimatay qof wax iiga qabtana waa waay adoogina markuu kufsiga gabadhiisa arkay wadnaha joogsaday odagayga wuu ku dhintay marka gabadheeda iyo maxay dhahdeen iyo odagayga iga dilay jiray xaji yaxya iga dilay jiray marka yaxya waxaan ugu talagalay jiray inaan cirab tiro waana raadinay jiray gabadhiisa saan ku gaari lahay xanuunka aan dareemi lahay aan sugayay jiray markaan ogaayay jiray wiilkaan ilmadeerka yihiin in uu aroosayo uusan rabin arooskeedan waxaan u dirsaday Caatif ma fahanti Caatif u dirsaday jiray saasaana leeyo keenay jiray wiilka markii la keenay sunta dhalada yarta oo sunta anaa u dhiibay
say u dhimato wayna dhimatay hasaartin iga yaala marka cimrigay waa qaatay saartin iga yaala cilkiis waa idiyey subxaanallah dhiigeeda la galay ilaaha kulaha dambigaasi aydan dhiig kale gashay subxaanallah cajiib maaha ilaahuna astur maanta qisada intaas ku eg tahay xabsigeedii adduunkeeda raacatay islaantii ilaan waxawaaye ciqaabteeda lasoo marsiina qasab baa qofku laakiin dabaarkii ogolaaday isna nacayb u qabo u ogolaaday inuu qashin walba u keeno bal wax walba inuu siiyo inuu ku dhimanayso waa iska dareemaya maxaa u geeyey subxaanallah ilaah nagu sababin qisadana maanta intaas ku eg tahay insha allah qisadan qisa la mid ah khayr badan aan idin dhaafay sheerta iyo like subscribe-ka naga iloobina waxaan idin leeyahay caafimaad bashbash barwaaqo kulligeen ilaahay idinkiisa oo idinkeena ahayn asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh